cunuga aad dhashay 5 sano oo ugu horeyda ula dhaqan sida boqorka, sida madaxweynaha. hadalkiisa hadal ha dul saarin, ha abiyuusin, wuxuu ku weydiiyo maya ha dhihin. yacni waa fahmi kartaa marka lagu yiraahdo sida boqorka ula dhaqan. waxaad arkaysaa dad badan ilmo yar oo 3 sano ama 4 sano jira rabo inay ul wax ku fahamsiiyaan, maanta dhan inay jukeeyaan. 5 sano ku xigta ilaa uu 10 sano ka gaarayo ula dhaqan sida addoonka. 5 sano hore amarkiisa ayaa shaqaynayay, 5 sanana waa inuu adiga amarkaagu shaqeeyaa. waxaan cun, waxaan cab, najaasada sidaan iskaga daahiri, sidaan u tuko, dugsiga aad. 5 sano sida addoonkii ula dhaqan waxaa loola jeedaa waa inuu amarkaaga ku shaqeeyaa, waa inaadan qaadan hal amar oo uu leeyahay. waa 5 sano ee asluubinta iyo tarbiyeynta. waa 5 sano oo la rabo inaad bartid sida dadka loo ixtiraamo, sida dadka loola dhaqmo. intaas wixii ka dambeeyana la saaxiib. macnaha 10 sano hadduu gaaro wixii ka dambeeya la saaxiib. waa inaad shuruuc degsataan, shuruucdaas ka soo baxana shuruucda ayaan ka soo baxaya. haddii 5 sano ee hore aad si fiican usoo tarbiyeysay, saaxiibtinimada waa uu qaadanayaa, shuruucdana waa uu ka soo baxayaa. muuqaalkan like saar, sii sheer garey si uu waalidiin badan oo ayaga iyo ilmahoodu ay isku wareersan yihiin u gaaro.